munaasabadan oo ahayd mid lagu shaacinayay shabakada dhalinyarada haldoor ee gobolka Sanaag oo maanta ku biiray xisbiga wadani laguna qabtay hotel cadam ee magaalada Ceerigaabo isla markaana dhalinyarada haldoor ka soo ay ka soo qayb galeen mas'uuliin iyo taageerayaal fara badan oo ka tirsan xisbiga wadani madax dhaqameedyo xubno golaha deegaanka Ceerigaabo iyo marti sharaf kaleba ayaa waxa goornaalkaasi ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay ujeedada kulankan gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Daadi Jaamac Xasan dhalinyarada shabakada haldoor ee gobolka Sanaag bal hadda shabakadu kulli aqoon bay u tahay waxay nagu soo kordhiso oo rajaynaynaa waa ka sugaynaa waa soo dhawaynaynaa aad iyo aad baan ugu soo dhawaynaa xisbiga iyo gobolka iyo meel walba mar hadda doorateena xisbiga ugu soo birta rag culus baa halka ku arkaa waxaana saacada saacada wadii banaanta ayaguna halkaasi ka hadlay kana cadeeyay fagaaraha inay ku soo biireen xisbiga wadani xubno ka mid ah mas'uuliyiinta shabakada dhalinyarada haldoor ee gobolka Sanaag waxaana hadaladoodii ka mid ahaa run ahaantii waxa ugu muhiimsanaa maanta xafladan ay daaranayd waa heshiiska siyaasadeed ee ay wada galeen xisbiga wadani iyo ururka haldoor taasoo aan u aragno guul weyn inay soo hoynayso inay wax badan ka bedelayso gobolkan iyo habsami socodkiisii weli kuma fakirin ama habeenku mariyoonin xisbiga wadani baad u ololeyn doontaa mabaadi badan iyo wax badan markaan eegay laakiin waxaan maanta halkan u soo istaagay baan in hadal badan aan ka odhan laakiin bal aan ka cadeeyo inaan maanta wixii ka dambeeya aragtidaydii iyo cududeydii aqligaygiiba aan ku soo biiriyay ama ku soo daray xisbiga wadani runtiina waxaan idinka ballan qaadaynaa xisbiga wadani gobolka Sanaag maadaama dhalinyaradii nooc oo aan ahayn qabiil oo ah qaybo kala duwan ee bulshada inaan maanta xisbiga wadani gobolka Sanaag ka noqonayo number 1 taanaga ballan idinka qaadanaa hadan waxa jirta marka TV-yada laga hadlayo ama uu soo galo xisbi reer soo gala reeraha soo gala waxa la sameeyaa reeraha cid kamid ah oo ka daba hadasha oo tiraahdo anagu kuwaasi ma aha anaga kuwayagii talo maxay oran doonaan kuwa reero ma aha xubno ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceerigaabo ee dhawaan ku biiray xisbiga wadani oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa dhankooda soo dhaweeyay sheegana inay ku faraxsan yihiin dhalinyaradan haldoorka gobolka Sanaag ee iyaguna maanta ku soo biiray xisbiga wadani waxaanu idin leenahay annaka idin ka soo horreeyna xoogaa walba ay ahayd oo halaag ma arage ku soo dhawaada xisbiga wadani waxa iyaguna halkaasi gabagabadii hadalka isaga dambeeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee madashan ku sugnaa waxaan aad ugu faraxsanahay shabakada haldoor inay maanta ku soo biirtay waxa halka ka sheegteen in xisbigii udub ay ka tirsanaa rideen waxa weeye maantana mar hadda ka rideen kana wada dhisi kartaan maanta de kulmiyaa tartamaya oo kulmiyii hore ay noogeen oo la soo tijaabiyay oo 8 sanooyin haystay oo halaaga iyo baayna baday ba maanta misnaale ana tartamayo isbedel keenay dima keenay nin weyn oo seexday baa waa kiisi heshiiskan maanta aynu halka ku saxiixanayno wuxuu ka turjumayaa maskaxdooda ufuqooda aragtidooda iyagoo ka kooban beelihii Soomaaliland ee halkan wada deganaa Soomaaliland in halkii wada joogtay ka kooban ayaa waxay garteen inay danta guud ka doorbidaan dantooda gaarka ah sidaan ay xisbiga ku biiriyaan cududooda iyo aqligooda waana soo dhaweynaynaa Abdullahi Xasan Darwish Somali Cable TV Ceerigaabo